بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحنا مرسل عبد الله خلف قدومي كحدانك دقمة جريبا وحن سلامي يا دمان سوماليا ومدى الصومالية الملك السوائي جوكتو كارهان وحن سي سلامي يا مرلبات بوتلان مركز صدحاتنا وحن سلامي يا دقمة جريبا ومدى كودنا ودمان تيد وحن لها آذي أدبانو في عنا الحمد لله نمد باجرتا أدبانو وناكسن هاي waxaan joognaa degmada Jariiban dadkii uu nabdoon yahay guud ahaan gobolka nabad weeye khaasaana degmada Jariiban nabad weeye aad baan u wanaagsanahay boqolkiiba boqol waxaan rabaa inaan halkaan maanta wax yar ka soo jeediyo oo ku saabsan waqtiga abaartii bilaabatay iyo soo guurkii ayaan rabaa halkaan inaan ka soo jeediyo dad kamid ah dadkana waxaan rabaa inaan u mahad celiyo waxaan halkaan uga mahad celinayaa waqtigii abaartii markii wax adkaadeen oo dhulka hawdka ah biyo beelay warbixin dheer iyo qaylo gaaban aan qaylinay ka bacdina uu daay roobkii yarka ah oo lagu barwaaqoobay oo ka daay degmada Jariiban qaybteeda hoose iyo ilaa ayl laguna soo guuray oo loogu soo guuray si aad u xoog badan waxaan ku celinay qayladii labaad runtii waxaan rabaa halka anagu uga mahad celiyo cidii ka qayb qaadatay oo ka jawaabtay dadka soo guurkiisa iyo dib u dejintiisii iyo baahidiisii ka qayb qaadatay waxa lambar 1 annaga qayladayadii ku soo baxay oo ka qayb qaatay gruubka wadaagsi la yiraahdo oo xukumo madax u yahay warsamo qolofay waxaan leeyahay jawaabta ay ka bixiyeen awal hore waa ugu mahad celinay dibna waa ugu mahad celin doonaa waxaan leeyahay insha Allah khayr ilaahay khayr ka siiyo waxay ka bixiyeen jawaab rasmi ah oo ay u geysteen dadka shacabka ah oo soo hayaamay biyo iyo raashin labadaba intaas waxaan uga gudbayaa gruubka wadaagsin waxa qayb ka qaatay marna aan qarinayn hal shakhsi ah oo kamid ah dadka reer Puntland la yiraahdo Dr. Ayub wiilkaas isagana aad baan ugu mahad celinaynaa lacag buu noo soo diray 1800 runtii 1800 waa ku soo celcelinaa waxa laga yaabaa in la siira maxay uga jeedaan waxaan uga jeednaa 1800 oo lacaga oo isagoo meel fog jooga uu soo diray oo xasuusta dadkan iyo gobolka kan iyo degmada tan sidaas xasuus noogu leedahay waxaan ma hadda labaad u celinayaa oo jawaab cad ka bixiyay WFP runtii 8 meelood bay awal ku jiraan markii waqtigan adkaada ay galeen ka bacdina qayliyaantii bay ka soo jawaabeen waxay ku dareen deegaanka qaybo badan oo kamid ah waxay hadda ku jiraan 26 meelood bay ku jiraan WFP oo shaqada laga wadaa iyagana aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan leeyahay waxa idin dhiman wali intoo kale iyo laba laabkeed waxaan leenahay ka jawaaba inta dhimanna ka soo jawaaba intaasna way idinka mahad celinaynaa maantana anagu gobolka kamid ma aanu hino waxaan nahay meel ka duwan haddana waxa bilowday jiilaalkii dadkiina dib buu isugu soo noqday oo ceeshii wuxuu ku soo dhawaaday dhulka biyaha uu ka heli lahaa WFP waxa kale oo jawaab ka bixiyay oo hawl kaga jira degmada oo ka hawlgalay faw oo ka bixisay kaarar oo NGO-ga la yiraahdo Sordo wakiil ka yahay iyaguna waxay ka bixiyeen kaarar runtii aan waliina soo gaarin nafacoodii oo isugu jiray raashin iyo lacag isugu jiray walina ma soo gaarin laakiin waa rajaynaa insha Allah taala iyadana waxaan u dirayaa baaq ku saabsan inay dadkii 3 bilood ka hor ay qoreen oo diiwaan geliyeen walina sugaya inay ka jawaabaan waxa ay u sheegeen insha Allah taala baaqaas aan u dirayaa iyagana Sordo oo lama taanaysan faw waxa kale oo ka jawaabay oo ku jira degmada NGO-ga la yiraahdo waxa la yiraahaa NGO-ga la yiraahdo insha Allah taala waxa la yiraahaa biyo dhaamayaan hawdkaana biyo ka dhaamayaan raashina way bixiyaan waxa la yiraahdaa insha Allah taala NGO-gaas in badan la shaqeynayay waxa weeye wariiso qabta magaceedii waxa weeye Care weeye hay'adda Care oo degmada ka shaqeyn jirtay in badan 3 sano la soo dhaafay ka soo shaqeynaysay haddana si toos ah ugu jirta raashina way bixisaa biyana way bixisaa iyagana aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay degmada asin jidaan si laban laaba waxa kale oo aan u mahad celinayaa NGO-ga in la degan oo la yiraahdo Wolfishin xafiisna ka furtay degmada wali waa sugaynaa dhaqaale ku bixi lahaa degmada xooggiisa waa sugaynaa wali fan baan naloo sheegay degmada ku bixi lahaa fanka runtii waxaan ka codsanay meesha awal loogu talagalay in laga bedelo qayb badan loo weeciyo biyo dhaanka iyo dadka quudintiisa haddana insha Allah taala biyo dhaan baa bilaaban doona waqtiga soo aadan oo dhow oo ay noo sheegeen ilaa 13 meelood
waxaan leenahay iyaguna soo dhawaada xafiiska waad furateen waa degantihiin insha Allah taala wayna wada shaqaynaynaa aad baa u mahadsantihiin mar haddii xafiiska nala yaalo xafiis dirisaan noo mataanaysanahay kullee waa heli doonaa xogtana waa heli doonaa insha Allah taala waxaa jira hay'ado degmada u soo galgala si dadban oo aanan haddeer halkaan aanan ka cadayn karin laakiin iyaga ruuxoodana waxaan jecel lahaa si cad oo diiran ee degmada uga hawlgalaanay dadkii maanta Soomaaliyeed reer Puntland boqolkiiba 60 baa waxa joogtaa Jiriban boqolkiiba 60 kaasi meesha ka yimaadeen taageerada loo gaan jiray waxa loo baahan yahay in loo keeno Jiriban oo la caawiyo oo Jiriban lagu caawiyo hareeraheeda ayaa loo baahan yahay dhammaan waxaan ugu baaqayaa inta ay dhageysanaysa inta aanu mahad celiyay iyo inta aanu mahad celinba mar labaad iyo mar saddexaad inta aanu mahad celiyana waxaan leeyahay waa la idin sugayaa sidaan ku mahad celinay baan idin sugaynaa haddana inta aan u baaqay oo aan u mahad celinay waxaan leeyahay si degdeg ah uga qayb qaata degmada dadka isugu yimid oo isugu soo guuray maanta oo jidaalku u bilowday oo niqa hadda uu ka dhamaaday awal runtii dibadujinta qayb laga qaatay badan oo degmadu xataa qayb ka qaadatay waxaan leeyahay waxaan dhamaantii idinku baaqayaa inaad ka qayb qaadataan ummadda Soomaaliyeed oo maanta dhaqaalaheedina hoos u dhacay lacagteedii dhunto aad ogtiin oo dhaqaale haysan xoolana ay gadajid ku tirsan iyo baysan lahayn ka gudbaya waxaan rabaa arrin kale oo runtii baraha bulshada aan ka arkay oo ka soo baxday degmada Jiriban khaas ahaan sida aan u dhageystay maamulka degmada Jiriban qayb ka mid ah inaan ka raali geliyo saxaafadda dhammaanteed warbaahintu meel ay joogtaba waxaan ka arkay warbaahinta ilaa shalay iyo xalay baa baraha bulshada ka arkayay hadalka wuxuu ku saabsanaa saxaafadda warbaahinta degmada ka hawl gashay in anaga nala shaqeyn ka maamul ahaan anigu saawirteen waxaan gudoomiyaha degmada Jiriban 5 sano oo la soo dhaafay waan ka soo shaqeynay degmada 5 hadda bilaabatana insha Allah ana ka shaqeeyaa rabaan nabadgelyada iyo isku xirkeeda iyo sharafteeda iyo horumarinteeda annaga runtii cid aan u mahad celinayno oo mar walba garab taagnayd oo ku shaqeynaysa duruufaha adag waxa ay ahayd saxaafadda degmada Jiriban oo u shaqeysa idaacado badan oo ka hawlgashay ilaa dekad ilaa heer gobol ilaa heer degmo oo nala soo jiifay baadiyaha intaan isu raacay nala soo fayay dib jiray waxaan leeyahay hadalkaas waxaan ka raali gelinayaa dhammaan warbaahinta degmada Jiriban nooc kasto ay tahay idaacadu ay hawlgasho shaqo kasto ay qabtaan waxaan leeyahay raali ahaado annagu ka maamul ahaan baan raali gelin ka bixinayaa arrintaas waxaan cadeynayaa oo meeshan ka qeexaya hadalka idinku dhacay inuu ahaa seero waana la shaqeyseen waana la shaqeyn doontaan haddana la shaqeynaysaan waa idin soo dhaweynaynaa gacantayda midig baa tihiin idin kama maarmi karno degmada iyadoo idaacad lahayn idaacadda halka ku taala waxa dhisay warbaahinta keentay gobolku waa og yahay Puntland waa og tahay degmadu waa og tahay dhalinyarada warbaahinta ee culimada isugu jira ayaa keenay idaacadda Jiriban ku taala jeebkooda u isticmaaleen way u qareemeen maskaxdooda geliyeen gacantay ku hayeen maalkoodana waa ku bixiyeen iyadoo saas ah ayay anaga waxa naga codsadeen ugu dambeyntii inaan maal gelino haddana anaga naga sugaysa inaan maal gelino iyaguna diyaar bay u ahaayeen markay dhameysteen shaqadoodii hawsha ay lahaayeen oo warbaahineed ayay waxay u gudbeen inay idaacad ka sameeyaan degmadii oo idaacad loo kala degmada u shaqeyso dhamaanteed gaadha ay hirgeliyaan waa hawl iyagu aysan lahayn waa hawsha dawladda lahayd waa hawsha anagu lahayn iyaga qabtay waan ku amaanaynaa maanta xaq nooguma leh inaanu niraahno calooshooda u shaqeystayaal weeye ama nalama shaqeeyaan ama gaar bay u shaqeeyaan xaq uma leh inaan niraan xaq uma lahayn mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan raali gelinaya dhammaantiin meel kasto aad joogtaan gobol hadaa joogtaan magaalo madax hadaa joogtaan iyo degmo hadaa joogtaan warbaahinta Puntland si guud baa u raali gelinaya si gaarana waxa u raali gelinaya warbaahinta degmada Jiriban oo agaasimo uu yahay Farxaan Faarax walaal raali ahaada aad baan u mahadsantihiin waan soo dhaweynaynaa naftayda iyo maamulkayga iyo cidda aniga ila mid ah anoo maamulka wakiil u ah waan idin la shaqeyn doonaa waan la shaqeyn doontaan waan idin soo dhaweyn doonaa waan idin mahad celinaynaa raali gelina waa bixinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala